sababta marka meel walba oo aan tago aan kulankeyga ugu bilaabay inaan dhalinyarada la kulmo waxay tahay waxaan aaminsanahay fikir ah marka ugu dambaysa dadkiina halkan jooga inaad noqon doontiin dadkii mustaqbalka dalka hogaamin lahaa in hadda aad sii ogaatiin marka fursadaha iyo caqabadaha dalka hortaagan fikirka guud oo socda idinkana laydinka ogaado dareenkiina si dareenkiinu ugu cabiran yahay xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta marka waxaan aad u bogaadinayaa qaabka aad u agaasimantihiin sidaas hataa ilbaxnimada iyo hadal qaybsiga iyo isu soo dhoweynta iyo soo koobitaanka iyo yacni qodobada sidaad u abbaaraysaan halkan yididiila ka muuqata waa idin bogaadinaya runtii aad iyo aad in dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo gaalkacyo jooga oo dhalinyaradii magaalada intay sabaabulaan dhowr qofood ay u hadli karto inta kale ay aamusan tahay qodobo kooban oo muhiim u ah nolosha aasaaska ah ee shacabka oo dhan idinka kaliya aan ahayn oo u doodaysaan waa wax dareen reebaya marka waa idin mahad celinaya halkaas ka sii wada qof walba aragtiin waayo sawirka la idinka geeyo ayaa ah sawirka dhabta ah ee magaaladiina iyo dadkiina